magacaygu waa Dr. Cabdirixiin Maxamed Cumar Dr. Doodan kana howlgala isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa toddobaadkan waxa aynu isdul taagi doonaa oo aynu ka hadli doonaa barnaamijkii caafimaadka waxayna isdul taagi doonaa oo falanqeyn doonaa qodobka xanuunka loo yaqaan oofka xanuunkaas oo ah xanuun aad iyo aad ugu badan bulshadeena kun aadna ugu sii badan carruurta yar ee 5 jir ka yar haddaba su'aashu waxay tahay waa maxay oof horta marka hore dhaqaxidiisu waxa weeyaan waa caabuq ku dhaca sanbabada gaar ahaan qaybta isku bedesha halka uu ka dhaco isku bedelka oksijiinta iyo dhiigga caabuqaas oo keenaya hadhow in ilmaha yar ama qofka uu ku dhacay uu naqaska uu qaadan kari waayo oo uu naqasku ku dhago sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay qaabilsan carruurta ee UNICEF waxay ku qiyaastay riboodkii ugu dambeeyay sanadkan 2017 ka dhamaaday waxay sheegtay in 2000 iyo adduunka oo dhan 2500 oo qof ay u dhintaan maalintii taasoo wadarta tirada guud ka dhigaysa in ka badan 1 milyan oo qof inay sanadkii u dhintaan xanuunkaas waad arki karaysaa sida ay u ballaaran yahay iyo sida aanay bulshadeenu ugu baraarugsaneyn carruurta yar inta ugu badan oo ugu keeno dhakhtarka Hargeysa waxay la jiifaan iyagoo wax loo keenaa qaba xanuunka oofka haddaba maxaa lagu garanayaa calaamadaha lagu garanay maxay calaamadaha lagu garanay xanuunka oofka waxa weeyaan koow waa xumad buu leeyahay aad u sarreysa wuxuu leeyahay qarqariyo waxa uu leeyahay qufac buu leeyahay qufacaas oo ay la socoto xaako midabkeedu huruud yahay ama borbo dhas mararka qaar dhiig soo raaci karo waxa kale uu leeyahay laabta uu qofku ka damqanayo laab xanuun buu leeyahay waxa kale uu leeyahay qofku inuu abateedkiisu uu ka xidhmo oo cuntada cuni kari waayo haddaba haddii ilmaha yar marka aad calaamadaha ay hooyadu ku aragto ama waalidka ilmaha yar haya uu ku arko waxa muhiim ah inuu sida ugu dhaqsaha badan leh uu soo gaarsiiyo goobta caafimaad ee waliba dhakhtar joogay ugu dhow waayo haddii aan si degdeg ah looga gaarin oo aan si degdeg ah ilmaha yar loo daweynin waxa uu ku keeni karaa cawaaqib ama complications kuwaas oo ay ka mid yihiin koow in xumadu ay ku badato ka bacdina ay maskaxda gaadho ka bacdina ay ku keento wax la yiraahdo febrile seizure kaasoo ah gariir ilmaha yar uu gariiro waxa kale ku keeni kartaa septicemia wax la yiraahdo ama infection dhiig raacaya waxa kale ku keeni kartaa otitis media oo ah inuu ilmaha yar dhaguhu dilaacaan waxa kale ku keeni kartaa naqaskan ilmaha yar inuu ku dhago oo uu keeno inuu oxygen ku keento markaa neef qabatoomo ka bacdina uu dhintoba muhiimaddu markaa waxay tahay ilmaha yar marka koowaad aad ku aragto calaamadaha in sida ugu dhaqsaha badan ama u suurtagala ay hooyadu u soo gudbiso oo ay u keento goob caafimaad oo dhakhtar joogo xanuunkan haddaba sidee baa loo kala qaadaa oofka waxa loo kala qaadaa waxa weeyaan xanuun ku gudba hawada iyo afka waxa lagu kala qaadi karaa qof ilmaha yar ama qofka oo uu qaata hawo wasakhaysan ama isagoo ka qaada qof kale qaababka loo kala qaybiyo oofka waxa kamid ah dhowr nooc baa loo kala qaybiyaa waxa kamid ah mid source halkii qofku ka qaaday loo kala qaybinayo oo loo kala qaybinayo mid qofku bulshada ka qaaday sida qof xanuunsanaya iyo mid uu ka qaaday isbitaalka muhiimadda ay leedahay in loo kala qaybiyaa waxa weeyaan iyadoo oo si kala daran oo qofka ku qaada isbitaalka gudihiisu uu ka daran yahay dawadana aanay ka jawaabin oo resistant ay u tahay qofka isbitaalka qaada sida ku gudbay ilmaha yar wuxuu ku gudbi karaa inuu ka qaado ilmo yar oo xaafada ilmo yar oo isku malcaamad yihiin ilmo yar oo qof adu oofkii qabo oo kale yaa khatar ugu jira hadaba ay muhiim tahay khatarta cidda ugu jirta waxa weeyaan labada cirif ee daada maxaan ka wadaa labada cirif ee daada waxaan ka wadaa ciyaalka yar ee 5 jirka yar sababtoo ah ciyaalka yar ee 5 jirka yar difaacooda jirkooda ayaan dhisnayn aad buu daciif yahay waxaanu ku keeni karaa mid xanuun oof ka dhib badan oo ka xanuun kulul oo ka hawl badan ka dadka waaweyn waxa kale oo ku dhici karaa dadka 60 jir wixii ka weyn dadka waaweyn sida ogsoonay dadka waaweyn laftirkoodu iyaguna waa immunocompromised ama dadka difaacooda uu yar yahay waxa kale oo khatar ugu jira qof uu ku dhacay xanuun sanbabada hore sida xiiqo kale qof leh sida qof leh COPD xanuunada loo yaqaano sida qofka sigaarka cabo oo kale ayaa asagana khatar ugu sugan yahay ugu jira inuu xanuunkaas si yar fudud ugu dhaco dawada xanuunkan waxa weeyaan qofka marka koowaad sida ugu dhaqsaha badan leh symptomatic therapy waxaan la yiraahdo laga jabiyo tusaale ahaan oo kale ilmaha yar
hadduu xumad badan yeesho inaad ku eegin la sameeyo in loo maydho in tuwaal qoyan oo kale marka hore madaxa loo saaro laga dejiyo haddii ay ka dejin weeyo taasi kabacdina markaad cisbitaalka keento ayaa la siin doonaa dawada marka lagu diagnose gareeyo xanuunka ayaa dawadii la siin doonaa waa midda labaad qufaca iyo ugu daweeyo oofka waxa qori karaya oo dhakhtar baa qori karaya dhakhtar bulshadeenu waxay samaysaa khalad bay samaysaa kaasoo ah in qofka inta farmasi la keeno uu kabacdina farmasigu dawo isaga sii bilaabo dawadaasoo ah waliba waxay isticmaalaan dawada tii ugu dambeysay ceftriaxone oo lagu tiriyo third generation oo ah markuu qofku uu dawooyinka hore ee loogu talagalay pneumonia markuu intaas oo dhan ay ka daweyn waayaan tii ugu dambeysay ah ayay isticmaalaan taasoo hadhow ku keenaysa ilmaha yari dawadii xanuunka ku xumaado dawo kale oo dawadiisii caadiga ahaydna ka jawaabi waayo waxaa muhiim ah in ilmaha yar si looga ilaaliyo in markiiba la keeno cisbitaalka sideeba haddaba looga hortagi karaya waxaa looga hortagi karayaa in kow la ilaaliyo maadaama uu ku gudbayo uu orofiikal yahay in nadaafadda la ilaaliyo iyo cuntada uu ilmaha yar cunayo iyo sida bulshada uu ku dhex nool yahay iyo ciyaalka ay ku dhex jiraan laga yaabo inay qufacyadii xanuunkeeda waxa qabaan oo laga ilaaliyo